بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha shanaad 2017 halkan waxaan ka sheegayaa inaan ilaahay u mahadnaqayo oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xorriyadeedii dib aan u helay. shirkan jaraa'id waxaan kaga faa'iideysanayaa inaan ugu horeyn u mahadceliyo Allah ilaahay suura galiyay inaan xorriyadeeda helo. sidoo kale muxuu ahaayay mahadcelinta waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo oo ii fidiyay cafis. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo ay garab istaagtay meeshay doonto ha joogto har iyo habeen ku fakaraysay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa. يعني ما سو كوبي كرر runtii dadyowga yani mana magacaabi karo imika munaasabad kale iyo waqti kale insha Allah ayaan faahfaahin ku bixin doona. waxaan doonayaa oo kale halkan inaan ka sheego yani kulli waxaad isweydiinaysaan oo de kulli warbaahin baatino meelaha isweydiinaysaan iyo maxkamadii iyo sida ay ahayd iyo arrimahaas laga yaabaa inaad isweydiisaan yani idinku filan inaan cadaalad helay iyo inaan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo gudoomiyaha maxkamadda sare hadaladoodii sida u kala duwanaayeen iyo sida isaga hor imanayeen. garsoorihii xukunka igu riday iyo wixii la igu soo eedeeyay waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yiri gudoomiyaha maxkamadda sare markay warbaahintu ku wareysatay London hadaladaas ay u kala duwanaayeen ayaa muxuu ahayd ku filan halka inaan cadaalad helay iyo inaan cadaalad helin. waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo xaadithada al-ifk waxyaaba muxuu ahaay hanfara oo muxuu ahaay yani muxuu ahaay la qaada dhigay oo in badan muxuu ahaay la hadal hayay oo la yiraahdo Cabdimaalik wuxuu ka soo horjeedaa Soomaaliland. Cabdimaalik qarannimadu muxuu ahaay duulaan ku yahay. waxaan doonayaa halkan aan ka cadeeyo Cabdimaalik kama soo horjeedo Soomaaliland iska day inaan ka soo horjeedo Soomaaliland laakiin cadawga Soomaaliland man ka soo horjeeda yani inay wax noqoto oo ay horumar gaadho ayaan doonaynaa. wixii ku duulaana inaan bayaamino aan farta ku fiiqno aan naano waxa weeye kaas ayaa ah cadow Soomaaliland. marka waxaan doonaynaa inaan baabino cadawga wahmiga ee la sameeyay aan waxba kama jiraanka ah ee la yiri muxuu ahaay waxa weeye Soomaaliya ayaa isu cadowa. runtii fariintaydu waxay ahayd markastaba dadka Soomaalida ahi inay walaalayihiin waa meesha runtii keenta badanaba yani la isweydiiyay Cabdimaalik Soomaaliland ma ka soo horjeeda macnaheedu ma aha haddaan idhaahdo Soomaali waa walaalo inaan ka soo horjeedo Soomaaliland. markaan leeyahay Soomaali waa walaalo waxaan ka hadlayaa Soomaali meel kastoo ay degto Djibouti yani Kenya Ethiopia Somaliland Muqdisho meesha doonto ha degto Soomaali laakiin waa walaalo yani kama hadlayno arrimihii muxuu ahaay siyaasadaha. marka waxa weeye arrinka walaalaynta Soomaalida inay walaalayihiin fariinta jacaylka Ilaahayna in amrayo oo ina leeyahay inamal mu'miniina ukhwa ayaa runtii si khaldan looga faa'iideystay oo dadka la fahansiiyay oo dadka muxuu ahaay si khaldan loogu sheego leeyahay Cabdimaalik ka soo horjeeda Soomaaliland kamana soo horjeeda Soomaaliland garabkeeda ayaan ahay. waxaan doonayaa runtii halkan inaan muxuu ahaay iyadana ka iftiimiyo yani haddaan anigu maadaama aan maanta xorriyadeedii helay oo alxamdulillah aan dabada taaganahay waxaan doonayaa inaan u sheego madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasto ay khusayso cadaaladda oo dulmigana nacab waxaan u sheegayaa inay jiraan xabsigan ka soo baxay dad ay ku muddo dhaaftay muddadii xabsiga qaar ay muddo 6 sano ay dhaaftay intay xidhnaayeen oo uu ka dhamaaday oo aan la sii deyn. runtii arrinkaas aan doonayaa in muxuu ahaay diiradda la saaro oo muxuu ahaay dadkaas dulman ee dhibaataysan iyaga awgood roobku ma inoogu dii waayay in laga soo daayo oo laga qaado oo jeelka laga soo daayo dad badan oo dhibaataysan baa jira. waxa laga yaabaa in aanay bulshadu ka warqabin. runtii anigu muxuu ahaay dad halkaas aan ku soo arkay dhibaataysan oo muddadii ay dhaaftay. insha Allah cadaaladda iyo muxuu ahaay meelihi aan soo maray ilaa booliska ilaa xeer ilaalinta ilaa maxkamadda ilaa jeelka wixii aan soo arkay inaan cadaalad meelaha ku soo arkay inaan ku soo arag mar labaad baan muxuu ahaay shir jaraa'id oo kale oo faahfaahsan aan ka qaban doona aan arrimaha kaga hadli doona. gabagabadii waxa muxuu ahaay fooda inagu soo haysa bishii barakaysaneed ee Ramadaan bishaas oo ah bil khayr qabta waxa weeye alxamdulillah markan waxaan u muuqdaaba inaan u soo baxay dadkii muxuu ahaay jilicsanaa dadkii dan yartaha. marka waxaan ugu baaqayaa samafalayaasha muxsiniinta meel kasto ay joogaan inay dadka dan yartaa ee dhibaataysan inay bisha barakaysan ay muxuu ahaay soo kaalmeeyaan ololihii kaalmee kuwana waxa weeye waan sii wadaynaa
mar labaad iyo mar saddexaad iyo ogolaada inaan u mahadceliyo يعني سيجار أقوم هذا اليوم مدحونها الصومال للمدن أحمد محمد محمود سيلانيو وعافي سيفي دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.